بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تانجعلها ميلو بدوندا كجورتين كسو دوادا قحوتير داب channel maanta insha Allah akhbaartii ugu dambeysay xiriyaha qaxootiga dhaab wararka boofista iyo dadkii baahanayaalka isdiiwaangelinayay akhbaartooda ugu dambeysay ayaan insha Allah ayaa muuqaalkan kaga boodin doontaa fadlan muuqaalkan dhammaystiro si aad wax walba ugu socoto qodobkii waadaan ku bilaabo dadkii baahanayaalka ayaa si aan caadeen oo taarar cusub la siinaya dadkii hore la diiwaangeliyay oo boono cad la siiyay ayaa si habsami leh shaqadooda u socoto waxaana loo gelayaa section wili section ayaa dhamaanin marka section B ayaa haddana berito insha Allah jiri doonaan sidoo kale listi ayaa jiro listigaas jiro aniga walba gudoomiyihiisa ayaa loo dhiibay haddii magacaada ku jirin waxba isku daalinin magacaada ka fiirso haddii magacaada ku jirto marka insha Allah sidoo kale dadka su'aalo ayaa la weydiinayaa su'aalaha marka la weydiiyo sidoo kale su'aalaha waxaa waye waqtigii ay soo galeen hadduu horaan kaar ka dhacay sababta kaar ka dhacay su'aalo ayaa la weydiinayaa waqtigii ay soo galeen cabashadooda waxyaabaha inta keenay waxaas marka la weydiiyo kadib waxaa laga qaadaya faro oo system faro online ayaa laga qaadayaa iyo sidoo kale sawir ayaa laga qaadayaa kadib waxaa la siinayaa kaar raashin ayaa la siinayaa kaarka raashinkaas la siinaayana hal bil raashin kuma qaadan doonaan hal bil raashin kuma qaadan doonaan sidoo kale systemka ayaa la gelinaya intaas sidoo kale manifest waa la siin doonaa iyo bambajutolan way qaadan doonaa laakiin waa doorka xigo waa loo hagaajin doonaa marka waxyaaba systemka waxyaaba in yar ayaa wax walba loo hagaajinaya qodobka labaad aan diiradda saar qodobka labaad waxaa ka mid ah boofista xeryaha qaxootiga dhaab wararkooda u dambeeyey waxaa ka mid ah in GVA joogto waa war farxad way dhammaan dadka boofista si waa Mareykanka GVA way joogtaa shaqo way shaqaynaysaa shalay imaan dad ayaa loo yeeray oo GVA maraayeen marka shaqadooda inkastoo caseska ay yaraayeen saddexda xaro ifiya haydheer dhagaxlay cases yar ayaa GVA maraayeen sidoo kale maalin dhexdaas wiid u horeeyay dad ayaa jiray oo mareen GVA loo yeeray aytana oo loo yeeray dad oo horaan oo intee mareen ayaa dadkooda ilmo reer tusaalahaanba dad waxaa jireen horaan GVA mareen ayaan sugay laakiin GVA waxaa loo soo celiyay waxaa waaye ilmahooda waxay u darsadeen wadaadkeeda ama xaaskiisa wax lagu darsaday ayaa cases dad lagu daray ayaa dib loogu soo celiyay ayaa GVA maraayeen sidoo kale laakiin GVA maanta bari dad cusub ayaa ahaayeen GVA cusub ayay ahaayeen ayaa GVA maraayeen sidoo kale wadanka Canada ayaa joogay oo dad ayaa medical jet up maraayeen dad qoysas badan ayaa medical jet up caafimaad maraayay maasha Allah Canada oo si xawli shaqo u bilowday xeryaha qaxootiga dhaab maasha Allah dadka farxad ay u tahay maadaama dad badan falay sugayo dadna qaarna oo sugayo meel lix marayaan oo Canada ah laakiin shaqadooda way dadajinayaan way boobsiinayaan fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhaab channel waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like noo saartid haddii horaan subscribe aan noo saarin hadda subscribe saar gambaleelka furo si aad u noqoto qofka u horeey maalinlaha warbixinada u horeyso aan soo dilno sidoo kale muuqaalkan sheeg ku qabo nala shaqeeya dad badan ayaa nigu mahadcelinayna sida taageerada aad u muujiseen qaxootiga dhaab channel idinka la'aantiin horumar ma gaari lahayn marka fadlan muuqaalkan sheegareeya dad badan gaarsii muuqaalka dhammaystiro sababta tahay lighta adiga agtaada light is subscribe agtaada waxa kuma fadhido laakiin waxa kuma fadhido wax dhib ay kuma lahan agtaada laakiin anaga qiimo weyn ayay noo fadhidaa marka insha Allah saas ayaan iyo codsanaynaa waa anigu walaalkiina Maxamed Daacad sidaad horaan iga barteen warbixinada ku saabsan qaxootiyada caalamka sidoo kale dad qaar ayaa jiraan warar isoo weydiiyay wararkaas ku saabsan arintan dadkan oo taar raashin la siinay baahanayaalka ayaa dad qaar su'aal isoo weydiiyay su'aasho ah dadka markii oo hadda taar raashin la siiyay manifest iyo bambajutula may leeyihiin markii aan siyaar arintaas markii la weydiiyay waxay dhahday qof hadii taar la siiyo xaquuqdooda badan yihiin waxay lahaan doonaan sidoo kale waxaa la siin doonaa manifest dadkii qaangaariyaasha waxaa la siin doonaa alien ayaa loo goyn doonaa insha Allah xaquuq badan ay yeelan doonaan sidoo kale waxay lahaan doonaan bambajutula sidoo kale hadhow marka la diiwaangeliyo fursadooda boofista aytana way heli karaan sida ay ku xiran tahay nasiibkooda qaxootiga shala ay la mid ahaan laakiin adduunka horay wax laguma gaaray adduunka horay wax walba Soomaalina boobsiis yarta maanta ditaarasi isla marka wax walba inay ku qabsadaan ramaya waxa waa system waxa waa hay'adaha system ay ku shaqeeyaan waxa iswaalina shalay boonaha haysta raashin ku qaadaysay hal door raashin ta maqnaan door dama waxa ku qaadanaysaa taar raashin taarta aad haysid dadka hore taarta haystaan waa isku mid
laakiin farqi u dhexeeya uu kaliya waxaa waye ayta manifest ay haystaan boona maxay haystaan bambajurle aad ku adeegtaan laakiin adigu waa heli doontaa waxba ha iswaalin sidoo kale dad waxaa jiraan oo haystaan boonayaashii hore oo dhacday oo ilaa hadda boono cadeed la siinin oo aytana su-aal soo weydiiyey maxaa anagtana lama hilmaamay waxyaabo badan ayay sheegeen marka dadkaas walaaladeeda aytan waxa uu sheegayaa in aytan loo shaqayn doono dad marka intaa shaqadan la bilaabin horteeda dad ayaa la diiwaangeliyey oo UNHCR imaaday oo la diiwaangeliyey dad aan la diiwaangelin way jiraan marka dadkan boonada cad haysta raashin la siiyo waxaa loo shaqayn doonaa dadkan kaarkooda dhacay ayaa boono aytan cad la siin doonaa marka boono cad la sii kadib aytan waxaa la siin doonaa raashin dadkii raashin la siiyana aytan manifest waxaa la siin doonaa iyo adeegyada kale ayaa loo socon doonaa marka shaqada way fara badan tahay maasha Allah marka sidaas ula socda in adduunyo laguma gaaro midaas ogaada marka maasha Allah marka isbedelo badan ayaa dhacay horaan waxyaabaha kaarka loo xawinay wax kale ma ahan UN horaan kaarka waxaa loo diidanay dowladda ayaa diidaneed dowladda qaxootiga halaga rareeyay maadaama laakiin qaxootiga dowladda Kenya ay fasaxday isdhexgalka la fasaxi doono isdhexgalkan horaan madaxweynaha uu saxiixay laakiin balse wali doodii ayaa socoto dadkii ayaa lala tashan doonaa waxyaalo dheeraad saafay badan ayaa la sameyn doonaa marka inay dadka raali ka yihiin waxyaabo badan ayaa la sameyn doonaa marka dadka raali ka noqdaan intaasoo dadka badana ay rabaan isdhexgalka ay jecel yihiin meesha u bataan ayaa la fiirinaya marka isdhexgalka iyadana insha Allah muuqaal ayaan soo sameyn doonaa iyadoo dadweynaha ra'yigooda aan weydiin doono insha Allah nin walba ra'yigooda aan weydiin doono insha Allah sidoo kale marka boofistana sida hadda horaan ii sheegay boofista waa la soo laabtay GFA way joogtaa kiisas ayaa marayo anis waa la rajeynaya isbuucyadan soo xiga in ay kala imaadaan xafiisyadooda dib ugu soo laabtaan midaas ula socda midda kale Canada way joogtaa dad ay soo weydiiyay Ingiriiska safaaradda Ingiriiska waxa ka war haysta ay dhaheen safaaradda Ingiriiska aytan Nairobi ay fadhiyaan safaaradaha dhan Yurub Nairobi ay joogaan laakiin dadaab meesan imaanin laakiin balse shaqada meesan bilaab Soomaaliya waxay aqaanaan tahid haddii uu safaarad shaqo bilaabin ma joogaan la dhahayan haddii Nairobi dadaab fadhiyaan hatta ay joogaan ma joogaan la dhahayan because waxay arkaan ilaa shaqadii ay socoto marka fadlan camaamada ha lagu tuuro marka fadlan sidoo kale waxaa waaye dadka qaar Soomaalida waxay dhahaan haddii way hay'adda shaqo ay socon waxay lahayaan ma joogto ma ahan way joogaan systemkooda waxyaabo badan ka bedelayaan qodob kale aan ku daro waxaa dad ayaa boofis su'aal iga soo weydiiyey dadka su'aashii soo weydiiyey waxaa ka mid ah emailka la dirsanayo waa maxaa la jiray iyo systemka horaan la fiirsan jiray qadka laga fiirsan jiray waxay dhan way culisi maxaa ku dhacay wax dad idhahan mid aan ii sheegay waxaa ka mid ah dadka sida hore systemka waa la bedelay system hadda waa la hagaajinayaa waxyaabo badanaa lagu kordhinayaa updating lagu sameynayaa maadaama updating lagu sameynayo waxyaabo badanaa isbedelay maadaama waxyaalo badan isbedelay waxaa lagaa rabaa marka in aad samaysiin dulqaad aad samaystiin emailka marka aad dirsato bil ay taamaanad idoo muuqaal aad soo sameyn doona su'aalahaas badan